السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku noqod wanaagsan saaxiibayaal. Xilligan aan ku jirno darteed, barashada wax isbaridda waa xirfadda ugu muhiimsan ee qof walba, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa jirta jumlad caan ah oo uu yiri maalqabeen iyo qoraa Mareykan caan ah oo lagu magacaabo Jim Rohn. Waxa uu leeyahay, nidaam waxbarasheedka caadiga ah ee waqtiga dheer waxa aad ku heli kartaa shaqo, laakiin wax isbaridda waxay ku siinaysaa hanti. In aad shaqo hesho iyo inaad hanti yeelatana farqi weyn ayaa u dhexeeya. kadib in ka badan 20 sano oo aan ku jiray xeyndaabka waxbarashada, ardaynimadeedii, macallin ilaa maamulo iskuul, waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago xeelado aad si fudud uga baran karto wax walba oo aad baranayso ee ku soo dhow mowduuca maanta. soo dhow mar kale, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. sida caadada ah, in aad shay master garayso oo aad qabiir ku noqoto waxay qaadanaysaa waqti, laakiin waxaan kuu sheegayaa in ay jiraan xeelado iyo farsamooyin aad si fudud ugu baran karto wax walba, haddii ahaan lahayd xirfad cusub, luqad iyo wixii la mid ah. tabahan aan kula wadaagi doono insha Allah ma ahan oo keliya khibradeyda ee baaritaano dheeraad ah oo aan ku sameeyay mowduucan ayaan jeclahay inaan kula wadaago insha Allah. waxaa jirta oraah caan ah oo uu lahaa Abraham Lincoln, madaxweynihii 16aad ee Mareykanka, taasoo dhahaysa, waxaad i siisaa 6 saacadood si aan u jaro geedka, anna waxaan 4 saacadood ee ugu horreysa ku bixin doonaa soofaynta faaska. oraahdan sida aad ka aragtaan waxay tilmaamaysaa awoodda diyaargarowga. marka ay timaado waxbarashadana, diyaargarowga aad ayuu muhiim u yahay. waxaa jirta oraah kale oo dhahaysa, diyaargarowgaaga hore waxay meesha ka saaraysaa in waxqabadkaaga uu liito. mar walba oo uu diyaargarowgaagu fiican yahay waa mar walba oo fursadaada ku guulaysashada shaygaas uu badan yahay. waxaa la sheegaa in qoraalku uu yahay qayb ka mid ah xifdinta, sidaa darteed waxa aad baranayso waxaa wanaagsan inaad qorto. muhiim ma ahan inaad wada qorto ee waxaad samayn kartaa inaad qorto keywordska ama waxyaabaha ugu muhiimsan. haddii aad fasal fadhiso oo aad tahay arday jaamacadeed ama mid iskuul, si taxaddar lagu dhegeyso macallinka, isla markaana qoro ereyada iyo jumladaha ugu muhiimsan ee uu sheego macallinka. haddii aad online ama buug aad wax ka baranaysana, dib u qor waxa aad baratay. nidaamkan waxa uu kaa saacidayaa inaad dib u xusuusato waxa aad baratay, muhiimaddana waa intaas. waxaan xusuustaa xilligii aan dhigan jirnay iskuullada, casharada oo dhan waxaa lagu qori jiray sabuuradda, annagana buugaagteena ayaan ku qoran jirnay. markaan la barbar dhigo nidaam waxbarasheedka hadda ka jira dalkeena oo ardayda ay 80% ku tiirsan yihiin buugaagta muqarrarka ee qoran, waxaan qabaa in nidaamkii hore uu qodobkan dib u xusuusashada waxa aad baratay uu ku fiican yahay. sidoo kale nidaamkan xitaa wuxuu ku wanaagsan yahay quruxda farta ardayga. dabcan waa fikirkayga, idinkana fikirkiinu qaybta faallada kaga dhiibta. buugaagta muqarrarka waxyaabo badan ayay ku fiican yihiin, mana ahan inaan aleecinayo dadaalka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, oo aan ogahay in isbeddel weyn ay ku samaysay waxbarashada Soomaaliya, laakiin waa fikirkayga. waxbaridda waxay 10 laab ka wanaagsan tahay waxbarashada marka ay timaado fahamka iyo dib u xusuusashada. inta aan bartay welina aqaano ku dhawaad 10 sano oo aan macallin ahaa, ma baran in ka badan 15 sano oo aan ahaa arday welina ahay. yacni waxaan kala jeedaa, inta aan bara ahaa ee aan arday wax barayay, anigana waxbaan baranaya, weliba si ka waxtar badan marka aan ardayga ahaa. cashar aad 10 jeer barato waxaa ka wanaagsan kana saameyn badan cashar aad hal mar qof kala barto, waana xaqiiq aad runtii tijaabin karto. marka ay timaado waxbarashada ama aan dhaho akhrinta, caqabadda ugu weyn ee inta badan ina qabsata waa in aan awoodi karin in aan focus garayno ama aan diiradda saarno shaygaas aan akhrinayno. waxaa qasab ah inaan ka caajisno ama ay naga mashquuliyaan waxyaabo kale oo uu telefoonkeenu kow ka yahay. sidaa darteed waxaan kula wadaagi doonaa farsamo aad ku xallin karto caqabadaas insha Allah. isticmaal xeerka 5 daqiiqo. xeerkan 5 daqiiqo waa xeer aad u fudud in la dhaqangeliyo. ujeedkiisuna waa inuu meesha ka saaro ka caajisida bilaabid hawl ama dib u dhigidda hawl muhiim ku ah. xeerku waa mid aad u fudud saan soo sheegay, keliya waxaad u baahan tahay in aad 5 daqiiqo oo keliya go'aansato qabashada shay aad si uga caajisan tahay, sida akhrinta buug iyo wixii la mid ah. marka ay dhammaato 5 daqiiqo, adiga ayaa go'aansanaya inaad halkaa ku joojiso iyo inaad sii waddo, laakiin 80% waxay u badan tahay inaad sii waddo, sababtoo ah wax walba waxaa ugu adag bilowgooda. triigga ama farsamada ku jirta xeerkaana waa intaas, in aad bilowdo shaygaas aad dhibsanaysay. waxaa jira muuqaal aan ka diyaariyay qodobkan oo lagu magacaabo xeerka 3 daqiiqo, waxayna isku si u shaqeeyaan xeerka 5 daqiiqo ee aan hadda ka hadalnay. haddii aad xiiseynayso, waxaad daawan kartaa markaad muuqaalkan dhamaysato insha Allah. marka la joogo xusuusta iyo waxbarashada, hurdadu aad ayay muhiim u tahay.
maskaxda iyo jirka oo hela hurdo ku filan waxay la mid tahay adiga oo baahan oo helay cunto. tijaabo la sameeyey ayaa tiro arday ah waxaa la xifdisiiyey xisaab. markii ay xisaabta xifdiyeen ayaa waxaa la siiyey 40 daqiiqo oo nasiino ah. 40kaas daqiiqo qayb ka mid ah kooxdii waa ay hurdeen halka intii kalena ay soo jeedeen. nasiinadii kadib labadii kooxba waxaa la tijaabiyey xusuustooda wixii ay xifdiyeen. kooxdii hurday ayaa natiijo ahaan keentay 85% iyaga oo kaga fiicnaa kooxdii kale oo keenay 60%. waxaa kaloo la ogaaday dhafarka iyo hurdayarida in ay keento xusuus yari. waxaa sidoo kale jira mowduuc aan ka diyaariyey muhiimadda hurdada. haddii aad jeceshahay inaad wax badan ka ogaato, descriptionka ayaa soo dhigi doona insha allah. haddii aad rabto inaad sare u qaaddo awooddaada waxbarasho, isticmaal farsamadan loogu magac daray ninkii hindisay oo la oran jiray Feynman. farsamadan aad ay u fududahay in la dabaqo, waxayna ka kooban tahay 4 tallaabo oo keliya. tallaabada koowaad waa doorashada mowduuc ama shay aad rabto inaad barato. kadib marka aad dooratana waxaad u baahan tahay inaad si guud u akhriso mowduucaas. qodobka xiga waa in inta yarta aad baratay aad qof kale u sharaxdo. qodobka saddexaad waa dib ugu laabashada meelaha kugu adkaaday ama aad fahmi weysay. yacni markii aad qof kale u sharaxaysay meelihii aad sharaxi weysay ee kugu adkaaday inaad dib ugu laabato. marka aad dib ugu laabato oo aad soo buuxiso meelihii aad fahmi weysay, qodobka ugu dambeeya waa in mar kale aad dib u sharaxdo mowduucii. farsamadan oo faahfaahsan mowduuc ayaan ka diyaariyey sidoo kale. haddii aad xiisaynayso, descriptionka ayaan soo dhigi doonaa ee halkaas ka daawo insha allah. ugu dambeyn, xilligan aan ku jirno barashada sida wax loo barto, waxaan dhihi karaa waa xirfadda ugu muhiimsan ee ay tahay in qof walba barto. sidaa darteed ha noqon daawade aan lahayn dhaqangelin ee fadhiga ka kac oo waqtigaaga ka faa'iidayso. mowduucana maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaan rajeynayaa inaad wax xun ka faa'iiday mowduucan insha allah. inta aan ku kulmi doono mowduucina xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.